Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan idin salaamay walaalaha quruxda badan igu xiran meel kasta aad joogtiin, soo dhawaada. maasha allah, fiideo cusub iyo maalin qurux badan. alxamdulilaah, waan soo nabad kacnay. waqti walbaba adig ku yahay ha kuu qurux badnaado. maanta anjeer xabashaan isku soo dayay, maasha allah waana keenay. alxamdulilah, ilaah mahad leh noo fududeeyey. marka waxyaabaan kusoo diyaariyey iyo qaabka aan soo sameeyaan rabaa inaad la qaybsado. maasha allah, soo dhawaada. canjeeradan waan jeclahay horta koow, laakiin sameyskeeda ma isku dayi jirin. meelahan ka dalban jiray, meelahan ka soo gadan jiray, laakiin maanta dana igu qasabtay. ayaan dhaweeda waxaan aaday suuq carab, markaasaan dhahay maamaan ka dalbaday. maamadii marka way taalaa fadhiisaa lay dhahay. markaas diyaar ma ahayn, markaasa guriga aan ka tagi ahayd. markaasaan dhahay waan soo adeeganaa, hadhowan kuu soo laabanaa. markaan laabtay suuqii aan ka adeegtay oo dhammaystay oo maasha allah aan u diyaar garoowina, horteedaaba la dhammaystaybo. hay marka wax walba bani aadamkana isku mid maahan. qofaa jiro waxyaabaha markuu niyeysto inuu cuno jecel. marka ana qofkaas ka mid ahay, dadkaas ka mid ahay umaleynaa. markii maamada markaa un tagay, horta idin sheekada horteeda idin sharaxo waxaan soo sameeyey. mashaarida waaweyn ama boorashta waaweyn aan soo shiilay, saa ujeedeen, iyo bur. mashaaridia marka aan soo shiidaa, waan soo shashaqaa. waxaan kaloo sameynaa baaquliyaashan yaryarka waxaa igu jiro filfil, laynzad iyo habad sawda oo tan shiidneen oo dhadhanka ah. markaan dhahay way dhammaatay, ilaa xaafadan ka imaanay waxaan dhahay intee kaloo ka helaysaa, intee ka dalbanaysaa. laynzad waaye, hal qaandan ku darsanaa, iyo filfil waaye tanna. iyo waxaa kaloo ii yaalo habad sawda. maasha allah, haddaad rabtid waad ka badsan kartaa, wax badanaa ku darsan kartaa, laakiin filfisha aad ay kulushahay, iska yareeya. markaasaan dhahay kaale adaba haddaa isku daydid waa keeni kartaa, maxaad ugu fikiraysaa meel kale inaad ka dalbatid ama aad raadisid. xaafadii aan imid, habeenkii waan jiifanay. maalintii kale, maalintii saddexaad iyo labaad waxay ahayd ma aqaan, waan tijaabiyey. waa kaas waan keenay, alxamdulilaah. oo canjeerada hadda idin tusooyi ma ahan, mid kalaa ka horeysay. markaan keenay sawir aan ka qaaday waxaan dhigay instagramkayga, farxaalkiisa amba meesha kor. markaasaa baahi soo aragtay, alla yey canjeerada intee ka keentay, intee ka dalbatay. war anaa sameeyaan dhahay, haye iga soo dalbo camal. maasha allah, marka codsigeeda waaye tan. marka maasha allah, jasaakallah khayr aan leeyahay. haddii maalintaas laiga dhammaysan lahayn ma iska tijaabadan ma sameyn lahayn moo. marka waxaa idin sheekadan idinla wadaagoyaa. maamo walba ama gabar walbabo haddee wax niyeysato inay tijaabiso way keeni kartaa. haddii u badato mar labo, hadday kaa halaabdo marka saddexaad garansii waaye waad keenaysaa. marka tijaabiya wax walbabo. waxaa kaloo kusoo darooya hadda bakinta, waa idin tusi bacdeeda. tan kale gadaan ugu soo darin, qaandada kalena bakan sawdo waaye, cusbo waaye. galeyda oo cajiinka lagu qasto waaye. waxaa kaloo ani kor aan ugu soo daray halka bakeeri, burkii iyo boorashtii aan soo kululeeyey waaye. inta kalena intaasay ku kooban tahay, boorashtii iyo burkii iyo galeyda cajiinka lagu sameysto, bakin sawda iyo bakin bowdar, labay kala yihiin. iyo waxaan kaloo kusoo daray laynzad, filfil iyo habad sawda. marka haddana khamiirkii waaye, khamiirka 2 qaan dambii lasoo dhigay. intaasaan ku darsanaynaa.
marka gabarey ama maamoy adi waaye caruur aan leeyahay badan saan waaye wax ma sameyn kari inta may si kasta caruur badan aa u haysatid marka khamiirkii iyo burkii aan isku soo daray digsigii kasoo dhigtay baaquliga waa igu yaraaday ma lagu qasi karo qaando yar oo cusub baan kusoo daray qaandida aa ujeedeen oo sokor aan dhahay suuri marka saan aan usoo mashiinkan yar aan kusoo qasay marka waxaan idin leeyahay waa samey kartiin waxaan idin dhihi lahaa haddaa marba maamo tahay ama gabar tahay ama gabadhaada hadday kuu joogto tus wax walba aad sameynaysid qurba haddaan joogno aniga dhaqanaa leenahay gabdhahena dhaqanay leeyihiin gabar waxaad arkaysaa oo 15 jir oo waxba karsan karin xitaa mal wax duba karin saasa sameynina maamooyinka tusa mar walba aad wax sameynaysid agtaada soo istaagto haddaad gabdho qabinna aad naftirkaaga isku day wax walbaba maanta maasha Allah shaqal google ma la jiray si ayaalo aw youtube ayaalo haddii wax aad mugdi kaaga jiraan meesha gelinaysa waa qoraysa waxa leedahay si loo sameeyaa wax badan oo waxaad helaysaa oo kastoo kugu caawiyo wadada u mar lahayd cajiinkan wuxuu u baahan yahay inuu aad u jileec u ahaado sidii malwaxda camal teena camal ma loo soo dubo oo teena inta qaandada ku shubtida wareejinaysa mootan laakiin inay socotaa rabaa iyada kaligeed cajiinka inuu socdo saas darteed marka biyan gadaan ugu soo daray maasha Allah saacadaan soo dhigay haddaad jecesha habeenkaad qasaysaa laakiin ani xalay waan ka gaari waaye inaan qaso subaxnimadii aan qasay galabtiin waan dubay saacado badan aan soo dhigay maasha Allah waa kaas marka saana ku soo baxday aad ay qurux badan tahay marka isku daya wax walbaba waxaan maqli jiray qof wixiisa kuu diiday wax sameysoo ku dhahay miya ma aqaan adi maamaha saas camal ma jirto marka diidmanaysan inkastoo aysan ahayn laakiin markaa weysid waa isdhahaysaa ma samaysatid adi naftirkaaga ma isku dayidid marka ani hadda tan saasaan ku sameeyey waan isku dayay markayga hore iyo marka dambeba maasha Allah iga soo baxday marka gabdhaheena maamooyinkeena isku dayida haka caajisin ku caajisin maali jiray ma ogay ani af Soomaaliga la yaabina waa kaas maraqaan soo sameeyay iyo labaan soo sameeyay canjeeradan laba kala nooc waaye mid alaabtii aan soo daray midna kuma jirto jeesaadkii iyo laanzaadkii iyo ma ku jiraan tan hadda aa u jeedin taan ka soo daray waaye maraq xitaa kala nooc waaye hilibka kala nooc waaye marka maamo walbaba oo ciyaal qabtan way og tahay guriga sidiisba 2 dawladood 3 dawladood camal aad joogto ilaahay noo barakeeyo ilaahay noo dhaafo qofaa jiro hilibka markuu la filayahay cuneynin qofaa jiro waxyaabo aan soo daray laanzaadka iyo jeesaadka aysan jecleen khayr iyo baraka idin dhaafo walaalayga dhammaantiin assalaamu calaykum